وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بريبا أرضي واحد بلابي دونا عشان تيني تحناها أونلاين كها كارهان كلاسيس كفوم توجا مادة كيمستريجا وحنا سوق هذا حيصدي كوباد هارد ووتر حيصدي لبعضنا أرضي وحنا سوق هذا الشيء اللي يقعنا سوفت ووتر ونقول بيها هذاك ينقول بيها جلسة أرضي هذا عمر كوباد وحنا سوق هذا نبغى كوري مركان وكهذا النشيء اللي يقعنا هارد ووتر وحيصدي كوباد وحنا سوق هذا هارد ووتر واي حيصدي لبعضنا أرضي وحنا سوق هذا الشيء اللي يقعنا وسوفت ووتر oo noqonaya biyaha jilicsan hadaba arday markaynu 12 soo qaadanay sideebay u kala duwan yihiin ama maxaa lagu kala garanayaa inuu midna yahay wax loo yaqaan biyo jilicsan midna uu yahay wax loo yaqaan biyo adag arday hadaba experiment waxay tijaabo ku sameyn doonaa maanta aynu tijaabi doonaa comparing soo wardii doona wax loo yaqaan hardness of different samples of water biyaha ama biyaasha jira sidii u kala duwan yihiin wax loo yaqaan ama sidii u kala adag yihiin saddex biyo ayaa ugu caasan وبيها لو يقانا distilled water lab كيالا chemistry بيها لو يقانا tap water بيها قصبدا iyo biyaha loo yaqaan bottled water ee warshaduhu soo saaraan saddexda biyo sideebay u kala adag yihiin ama biyaheeba ugu adag biyaheeba ku xiga biyaheeba ka soo xiga macnaha way marka inta la sameeyo waxa la isticmaalaa shay loo yaqaan soap solution saabun biyo ku qasan baa la isticmaalaa waxa lagu daraa xogaa amount ama xad yar oo kooban waxa loo yaqaan mid kasta lagu daraa saabun way arday waxaan eegnaa hadaba waxaan ku ri distinguish waxaan kala duwanaa between the temporary waxa loo yaqaan temporary hore soo qaadanay oo biyaha hardness-kooda waqti gaaban haysta iyo biyaha loo yaqaan permanent waxa loo yaqaan of hardness adkaanshaha labada shay ayaan kala duwanaa oo fiican waxa loo yaqaan soft water iyo sidoo kale waxa loo yaqaan soft water laakiin waxaan isticmaalnaa shayga loo yaqaan using a soap solution biyo ay ku jiraan waxa loo yaqaan saabun ay isticmaalnaa qalabka looga baahan yahay waxa maxay qalabka looga baahan yahay waa equipment-ka looga baahan yahay materials-ku equipment-ku waa qalabka la isticmaalayo materials-kuna waxa weeye waxa loo yaqaan waa shayda wax lagu qabanayo hadaba arday equipment-ka waxaan u baahanahay saddex conical flask waxaan u baahanahay test tube waxa loo yaqaan stopper oo conical flask la gelinayo waxaan u baahanahay waxa loo yaqaano burette ama waxa loo yaqaan bebetis waxaan u baahanahay arday waxa loo yaqaan distilled water oo materials waxaan u baahanahay bottled water oo materials iyo waxaan u baahanahay waxa loo yaqaan tap water oo waxa loo yaqaan materials way arday waa ka marka koobaad equipment-ka u baahanahay waa 3 conical flask number 1 waxaan u baahanahay stopper oo conical flask la gelinayo waxaan u baahanahay bebetis ama waxa loo yaqaan burettes way waxaan u baahanahay 50 cm cubic oo soap solution oo shayda wax lagu tijaabinayo waxaan u baahanahay biyo kala duwan oo biyaha kala duwan waxa weeye waxa loo yaqaan tap water biyaha loo yaqaan distilled water iyo biyaha loo yaqaan bottled water intaasina u baahan arday way hadaba arday procedure-ka iyo talaabooyinka la raacayo maxay yihiin talaabooyinka la raacayo arday waxaynu soo qaadanaa saddex conical flask waxaynu ku daraynaa saddex conical flask waxaynu ku daraynaa oo aynu ku shubaynaa waxa loo yaqaan saddex conical flask waxaan ku shubaynaa saddex biyo ama saddex volume biyo oo isleeg waa koow inta marka ku shubno mid kasta waxaan ku daranaa xaddi amount go'an oo waxa loo yaqaan sooba wayna ku wadaynaa ilaa mid kasta ilaa aynu aragno waxa loo yaqaan leader xubadi inagoo ruuxayna hadee ka koobaad but waxaan dhignaa equal volume isleeg each water oo biyo sample into conical flask kasta waxaynu isticmaalnaa waxa loo yaqaan xaddi biyo go'an saddexda conical flask 3 conical flask waxaanu isticmaalnaa mid kasta tusaale ahaan 10 cm cubic volume ah waxa loo yaqaan biyo ay mid kasta ku shubana talabaad virus marka koowaad waxaan ku darnaa waxa loo yaqaan saabun soap solution inagoo isticmaalna bebetis ama waxa loo yaqaan burettes talaabada saddexaad waynu ruuxanaa mid kasta deetan waxaan eegnaa waxaynu aragno waynu ku wadanaa ilaa ayaynu aragno waxa loo yaqaan leader xumbo ilaa ayaynu aragno وكونتينيو ونكوذنا add soap solution كترد soap solution كي تسيء لا يعرفنا واحد الله يقانا leader حمبذا واي record واحد نمبر قرينا عباية دوما record قرينا number of drops of solution من كستا
solution ama inta dhibcood ee saabuuna aynu isticmaalno waterka waxa loo qaybiyaa distilled water waa number 1 tap water waa number 2 iyo bottled water waa biyaha warshad yaalla laabka iyo biyaha qasabada yaalla iyo biyaha yaalla waxa loo yaqaan warshadaha way intaas arday research marka ugu dambeysay aan arki doonaa insha Allah mid kasta ka soo baxa qodobana waxay noqonayaan mid kasta inta saabuuna ay ku dari doonaa tan inta loo saabuuna ku dari doonaa ma shan ku dari doonaa tan waxa ku dari doonaa shan tan waxa ku dari doonaa waxa loo yaqaan shan marka xubada inaan arki doonaa soo baxa insha Allah arday waxaan guda gali doonaa waxa loo yaqaano tijaabadeeni ama experimentkeeni inagoo eegi doona biyaha hard waterka iyo soft waterka kuna isticmaalana waxa loo yaqaano substitution saabuun in xad go'aano saabuun ku darayna xadiga saabuunta go'aan ay ku darano waxay inoo kala saarayaan biyaha softiga iyo biyaha hardka oo ah waxa loo yaqaan inta badan guriyeena ku aragno biyaha roobka iyo ka yihiin soft water biyaha kale meelaha ceelasha la islaamiyana yihiin waxa loo yaqaan hard water marka maryaha la meereeyo tusaale ahaan aad baa loo kala gartaa waxa loo yaqaan hard water iyo soft water ardayda hadaba waxaan ku yiri talaabada koobaad waa number 1 ka arday waxaan ka dhigayaa waxa ku qoran waxa loo yaqaan bottled water baan ka qoray waa biyaha waxa taagan tahay bottled water birihi warshada kaasi waxa uu taagan tahay tap water waa biyihii qasabada kaasina waxa uu taagan tahay distilled water oo biyihii ah waxa loo yaqaano laabka noo yaalo ka number 1 waxaan ku shubaya arday waxa loo yaqaano saarahan xad goono waxaan ku shubaya waxa loo yaqaano bottled water way waxaan ku shubay bottled water way bottled water kaasi waxaan joojinay arday waxa loo yaqaano saarahan 50 cm cubic way kana ku cabiranaya كما كو عبر كان عبر waxa loo yaqaano 50 cm cubic this waxa loo yaqaano 50 cm cubic way 50 cm cubic baan joojinaya arday mid kasta waxaan ku shubaya waxa loo yaqaano way mid kasta waxaan ku shubaya waxa loo yaqaano 50 cm cubic way 50 cm cubic kaasi waxa weeyaan waxa loo yaqaano biyihii loo yaqaano bottled water badeeg waa biyihii loo yaqaanay bottled water biyihii warshada way arday waxa kaloon isticmaalaya waxa loo yaqaano oo isticmaalaya biyaha loo yaqaan tap water kaasi biyihii ma aha imka waxa ay ku jira biyihii qasabada ay ku jira biyaha qasabada iyadana waxaan isticmaalaya waxa loo yaqaano afan waxaan isticmaalaya waxa loo yaqaano distilled water biyihii laabka noo yaala biyaha laabka noo yaala iyagana waxaan sameeyay waxa loo yaqaano waa 50 cm cubic ku isticmaalaya this waxa loo yaqaano 50 cm cubic way 50 cm cubic baa joojinay arday 50 cm cubic way 50 cm cubic waxaan ku shubanaya waxa loo yaqaano biyaha distilled waterka way xaqana arday waxaan ku shubanaya biyihii loo yaqaanay tap water biyihii qasabada biyihii tap water biyihii qasabada way hay 50 cm cubic joogta ma fiirinaya waan eegaya waa 50 cm cubic way hay intaasi arday waxaan kala isticmaalaya waxa loo yaqaan badeeg waxaan u isticmaalay waxa loo yaqaan number 1 taa waxa ay ugu jira waa bottled water oo biyo bottled water ka waa biyo warshadeena way taa waxa ay ugu jira biyaha loo yaqaan tap water oo biyihii qasabada taana waxa ay ugu jira biyihii distilled water oo biyihii laabka oo kaas mid kasta waxaan ku shubaya arday xad go'aan ku shubaya waxaan u isticmaalaya waxa loo yaqaano bureedkan adeeg bureedka sa isticmaalaya bureedka markaan isticmaalo waqtigan ugu yar bureedka la isticmaalaa laakiin waxaan iska isticmaalaa maanta waxa loo yaqaan waxaan u baahanahay xad go'aan saabuun ku darno oo islaag xadiga go'aan saabuunta islaag tusaale ahaan waxaan soo qaadanaya waxa loo yaqaan qalabka yar bahalka yar ma isticmaalaya bahalka yar markaan isticmaalo waxaan ku shubaya waxa loo yaqaano dhibic koobaad oo ku shubay adeeg waa biyihii loo yaqaanay maxay biyihii loo yaqaanay bottled waterka way waan ku shubay waa number 1 kaana arday waxaan ku shubayaa hal dhibic amba hal drop oo waxa loo yaqaano saabuuna waa number 2 kaana waxaan ku shubayaa arday waxa loo yaqaano hal dhibic oo waxa loo yaqaano water mid kasta hal dhibic aan ku shubay arday waxaan ku celinayaa waxa loo yaqaano tusaale ahaan badeeg ka waxaan ku shubay waxa loo yaqaano hal dhibic baan isticmaalay 1 dot waan isticmaalay kaana waxaan isticmaalay hal dot kaana waxaan isticmaalay hal dot mid kasta hal dot waan isticmaalay way arday ka labaad waxaan sameeynaya waxa loo yaqaan badeeg waxaan sameeynaya qodobka labaad waxaan ku shubay waxa loo yaqaan iyada dhibic waa hal dhibic substitution kana waxaan ku shubaya hal dhibic kana waxaan ku shubaya hal dhibic waa this substitution waa saabuun isticmaalay way arday mid kasta waxaan ku shubay waxa loo yaqaan tii labaad waa number 2 iyo waxa loo yaqaan number 2 mid kasta hal dhibic ayaga haysa waxa loo yaqaan saabuuna way arday waxa loo yaqaan marka inta sameeyo hadana waxaan ku shubaya waxa loo yaqaan iyadana hal dhibic way waxaan ku shubaya iyadana waxa loo yaqaan hal dhibic way iyadana waxaan ku shubaya waxa loo yaqaan hal dhibic way inta markaan sameeyo
arday waxa loo yaqaano waxaan ku shubay waxa loo yaqaano bahdeeg number 3 waa dhibic saddexaad ku shubay tan dhibic saddexaad ku shubay tan waxaan ku shubay waxa loo yaqaano dhibic saddexaad way arday waxaan sameynay waxa loo yaqaano shak waa ruuxaya وبيه أهو حلو يقانا بطل وتوبيه وشدة واي تنوع تاب وتركي وروحيا واي تنوع حوي حلو يقانا ستيري واتر وروحيا واي أرضي وحلو يقانا ولي استيل مارك نوع حلو يقانا ليدر وحبا مارك مركا واحد نقول نصينا كوسي ونوع حلو يقانا سامتين واي تي أفراد كشوي هذا لبيس أفراد هيا كشوي أرضي والنمبر 1 واي هي waxaan ku shubay taas waxa loo yaqaano saddex imika way laba ku shubaya tan waxaan ku shubay waxa loo yaqaano number 1 iyo waxa loo yaqaano number 2 way tan waxaan ku shubay waxa loo yaqaano number 1 iyo waxa loo yaqaano number 2 way arday mid kasta waxaan ku shubay waxa loo yaqaano number 2 kan waxaan ku shubay 1 iyo 2 kan waxaan ku shubay 1 iyo 2 kan waxaan ku shubay 1 iyo 2 mid kasta waxaan ku shubay 5 way waan ruuxay arday hadda shak baan sameynaya marka ruuxa waxa loo yaqaano aad u ruuxo tusaale ahaan waxa eegay wax loo yaqaan isbedelka tan waa ruuxaya waxa eegay wax loo yaqaan isbedelka tan waa ruuxaya waxa eegay wax loo yaqaano isbedelka hadeeg wali ma arkana wax loo yaqaano waxaan arkana arday wax loo yaqaano tusaale ahaan imika taasi waa tab water waa biyihii adka waxaan ku arkanaa arday inay go'een aba ay sameeyeen wax loo yaqaano tusaale ahaan wax ciiro kala inay sameeyeen saddex yaacaya tan arday waxaan ku arkanaa inay sameeyeen waxa loo yaqaano ay xumba sameeyso baad fudud sameeyso way tan arday waxaan ku arkanaa waxa loo yaqaano marka saan ahno inay sameeyso waxa loo yaqaano xumba yadana way si fiican saynu saarno arday waxaan sameeynaa waxa loo yaqaano aan ku soo wadana way eegtaa tusaale ahaan waxaan ku shubay waxa loo yaqaano number 1 waan ku shubay waxaan ku shubay 2 way waxaan ku shubay waxa loo yaqaano 3 way tan waxaan ku shubay waxa loo yaqaano 1 waxaan ku shubay waxa loo yaqaano 2 tan waxaan ku shubay 1 tan waxaan ku shubay waxa loo yaqaano 2 way arday waxaan ku shubay waxa loo yaqaano mid kasta 2 waa 1 iyo 2 tan waxaan ku shubay 1 iyo 2 tan waxaan ku shubay 1 iyo waxa loo yaqaano 2 marka inta sameeyo waxa sameeynay waxa loo yaqaano shik waa ruuxaya way taa waa ruuxaya tusaale ahaan diini waxaan ku arkay leader xubadi ma arkay arkaya xubadi waxa ogay biyaha sin yihiin biyo softiya way taamka sameeyo aan wali xoog u ruuxo waxa ka saartay wax saamoonayna sameyn darkaysa way marka saarto isdhaxyaac ba ku jira isdhaxyaacaas ha ku jiraan laakiin ma sameynayso waxa loo yaqaano wax xubba way waa taa water biyaha hard waterka waa biyaha hard waterka taamarkan arday ruuxo waxa weeye waxa loo yaqaan bahdeeg waa bottle water halkaas ina sameeyso waxa loo yaqaan xubada dhex wareegaysa ee marka uu si fiican u ruuxo halkaas waxa loo yaqaan ina sameeysay distilled water ina sameeyso waxa loo yaqaan xub marka labada biyo waxa maanta ku aamineen yihiin waxa loo yaqaan biyo soft water xabada biyuna tahay waxa loo yaqaan hard water inagu xubada ku aaminina way halkaas inagu joogtaa insha Allah Abdullahi Hiraado assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh